waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan u sheego dalalka aanu saaxiibka nahay, deriskayaga, walaalahayaga Carbeed iyo kuwa gobolka ee muslimiinta ah iyo kuwaan ahaynba, gaar ahaan kuwa ku jira Africa Union, dadka waynu isaga dhownahay. Waxaa naga dhexeeya dhul, taariikh, diin iyo dano kale. Waxaanu idinka mudnayn inaad idinku hoggaamisaan garabsiinta qadiyadda Somaliland. Haddiise laydinka dheereeyey, waxaan gaar ula hadlayaa dalalka Carbeed iyo kuwa Islaamka. Weli fursado badan ayaa u furan idinkoo gobonnimadana ilaalinaya, yaanay caadifadda iyo muusanowga maangaabku idin hodin oo ha ka hadhina aqoonsiga Somaliland. Dalalka kalena way aqoonsanayaan, bulshada caalamkana way ka mid noqon doontaa, kursigii ay xaqa u lahaydna way ku fadhiisan doontaa. Kuwii boholaa ku jiray way soo baxeen, kuwii dhuumanayay way soo baxeen. Maanta waxaynu kala ogaanay yaa cadow inoo ah, yaa saaxiib inoo ah. Waxaynu kaga baxaynaa inaynu cadaawadda iyo colaadda aynu ka hortagno midnimo qaran.